السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaynu bilaabeynaa look up cashirka loo yaqaanay. waxaynu sameynaynaa shirkad dhameystiran database-keeda. waxaan marka hore soo kicinayaa sidii aan hore u naqaanay access-kaygi AWS baan ku qoray. kadib waxaan dooranayaa Microsoft Office Access. marka version ku doonay ha noqdo laakiin qaabka aan u raadin doontaa. marka aan furo hadda waxay soo bixi doonaa marka kambaniyadii aan hore u sameystay baa qaybtan soo bixi doona sidii aan naqaanay. marraba kambaniyadaas markaas aan waxaan rabaa inaan mid cusub sameysto. sidoo kale waxyaabaha halkan ku yaala oo waxyaabo sameysan way waa database sameysan sida xiriir contact u sameyn lahayd student oo kale iyo waxyaabo la midka hay'adiyado iyagoo sameysan way internet baad ku xiraysaa kadibna waa la soo degaysaa kalendaradii baa kamid ah calculator-kii baa kamid ah businesskii baa kamid ah. laakiin inagu waxaan rabnaa inaan toos u abuurno database noocan oo kale adigu iska leedahay ku khaas ah oo nooca doonayso aad u dhiganayso. marka waxaan ku dhufanayaa halkan ay ku qoran tahay blank database. kadibna xaggaana waxaan ku qorayaa shirkadeyda magaceeda waxaan leeyahay indho deero. haddii aad doonayso markaa meel gooni ah inuu ku dhigo halkaas aad fur ay ku qoran tahay file location. kadib marka aad ku dhufato halkee doonaysaa in lagu dhigo hadhow toloshiga la save gareynayo ma documentiga rabtaa ma download-kaad rabtaa xageed rabtaa desktop-kaad rabtaa ma download-kaad rabtaa ma music-kaad rabtaa ma picture-kaad rabtaa ma sida lagu dhigaya. anoo hadda dhiideedu way xidhan tahay laakiin qufulkaad ka furan kartaa oo dhex dhigan kartaa. okay meeshu doonay ha dhigo create baan leeyahay marka waan create gareynayaa. sidan marka uu igu soo furmo waxaan weydiinaya wax kale ma aha waa table uu isagu sameystay way. waan iska xidhayaa marka table-ka close yarka ah ayaan ka xidhayaa marka. waayahay warqadan aan raacaynaa haddaba qawaaniintan aan ku soo qoray ayaan raacaynaa. kambanigii waxaan u bixinay indho deero company. waxaa lagu yiri waxa aad tagtaa create waxa aad doorataa table design. waxa aad tagtaa create waxa aad ka doorataa table design. good waayahay create table design. kadibna halkaa waxaa la yidhi name ku qor hortiisana text ka dhig. marka ugu horeyso waxaa laga yaabaa inuu xogaa kugu raaga halkaas. markaas su-aashan uu ku weydiinayo mar walba uu ku weydiin doonaa waxaad leedahay okay. halkan marka qaar waa la bedelaa laakiin hadda inaga waxaa laynagu yidhi text ka dhig baa la yidhi halkaa. kadibna close yes dheh vendor isu bixi okay dheh ID-gana noo ka dooro. good close yes vendors waa ganacsatada weeye. okay dheh ID ma doonaysaa baa lagu lagu raaciyo may hay raacin no. okay kii koowaad baan sameeyay waan ku noqonayaa si aan kan labaad u sameeyo. waxa lagu yiri go create choose table design. kadib item ku qor text dheh xid yes dheh product u bixi okay. marka tirada ID-ga noo dhaysagan okay waa create table design item baan ku qorayaa halkan close baan leeyahay waxaan u bixiyaa products okay dheh ID-gana noo dheh waa laba soo ma kanaan furaynaa waxaan ku dhex qoraynaa ganacsatadii marka Amir company Somali company haye Somer General Trading company Mi'ad company Indabirta company haye Wachale store هدية ستار هي بدري ستار علي على بغاش الستور تصدقوا هذا سمرها كمبنية دي أتكو حدنايت aad ku ganacsanaysay
aad alaabaha ka soo iibsanaysay si aad alaabaha hadhow aad u sii iibso alaabaha ka soo iibsanaysay waxaan ku tirsanaysaa close baad leedahay marka okay balaarinta ayaan bilaadiyay oo yes dheh waa vendorkii marka haddii marka company kale aan u baahday inaan ku daba daro aan ku daba darayaa Harun Dere company company close baan leeyahay su'aal ma weydiinay mar kale haddaan u baahday inaan wax ku daba daro waa furayaa laba jeer ma ku jiiday haddii labada jeer furi weydo markaan mar ku dhufto enter baan leeyahay barodhaga hadda aan furay isagana xakan waxa ku dhex qoraya waxaan ka ganacsanaya marka baqaar dhismaayo masiibir iyo jiingad iyo loox iyo nuurad iyo phone telephone iyo marmar aad ka ganacsanaysa ma raashina oo sida bariis sonkor saliid aano timir qasaac sharaab mango شراب كوكا كولا أيه شراب بضاعة أيه عانو يمني عانو مراعي أكيد صوت الناس كل وسوات سكالة haddii hadhow barodhaga ama alaabo cusub ay yimaadaan wadanka waad furaysaa waad ku daba daraysaa labadii markaa ID-ga aan noo nidhi maxay ahaayeen labadaasi ahaayeen number 1 vendorka number 2 barodhaga labadaas ID-ga noo baan nidhi waxaan sameynayaa hadda number 3 table-ka saddexaad waxaad tagtaa baa la yidhi create waxaad doorataa table design good intana ku dhex qor marka create table design maxaan qoraa date kan ku horeysiinaya mar walba date and time ka dhig halkan vendor waa maxay macnihiisu ganacsade magaca ganacsadaha weeye marka adoo halkaa jooga marka look up garee labada look up baa lagu sameynaya waa kana look up soo dooro vendor kana look up soo dooro product hortooda waa inaad text hadday text ku noqon weydo hortooda uma look up garee ismay marka xagana waa joogsan kartaa halkana waa joogsan kartaa meesha doonta joogso look up ku dhufo text box ku dhufo isha soo baxday fur waxa doonanaysaa como box ba dooranaysaa ku dhufo como box table ku wari way banaan tahay meesha ay ku qoran tahay row resource halkaas aad ku dhufanaysaa meesha banaan isha aad furaysaa waxa aad dooranaysaa vendors ganacsatada okay soo deg marka waxa ku xigay item isagana sidoo kale look up ki text box ishan fur como box dheh halkan ku dhufo ishan fur hadii lacala ay taa kale kaaga dhacdo saas ka noqon doonta okay kadibna close iska dheh halka marka aad joogto hadana close taas ku jiid iska xirkan okay waan qaldamay way xageed ku jiidaysaa taas ka furaysaa okay markii hore waxaan dooranay vendor hadda maxaan dooranaa products baan dooranaa okay soo halkan ku dhufo waxaad ku qoraysaa tiradii QTY ama quantity iska dheerayso number ka dhig hortiisa unit cost currency lacag ka dhig waxaad ugu dambaysiinaysaa total isagana currency inta marka aad diyaariso marka close garee baa lagu yes dheh purchased item isu bixi okay marka tira ID-ga yes labadii hore noob ahaan kan waa maxay waa yes way okay close garee yes dheh waxaad u bixisaa purchased items okay dheh ID-ga yes dheh waa lagu sameeyay marka isaga marka waxaad u bedelaysaa intaad ku dhufato form baad u bedeli waa form okay wada geli labadan calaamadood finish dheh haye ku noqo hadana report baa tagi si aad report uga sameyso wada geli isagana finish dheh okay harabna inuu mid kasta yeesho xabad table xabad form iyo xabad report xabad table xabad form iyo xabad report ka dhakada asli waa form ka akhtarkii waa report ka
kaasina waa table. Okay, kan waan sameeyay marka. Okay, ka waan dhamaystiray. Number 4 baan bilaabaya marka. Customer baan sameynaya. Customer-ka si aan u sameeyo hadhow tole alaabsi iibinta. Marka number 4 go tag table design dooro, name ku dhex qor, hortiisu tagastay ahaato, customer soo bixi marka. Okay, create table design, name, close garee, customer soo bixi. Okay de ID-gana noo ka dhig maadaama hal shay kaliya aad qortay noo way ID isagii fur. haye macaamiisha ku dhex qor markaa. نعاد محمد روبله جامع علي حسن محمد فرح سكرية موسى حسن حسين ورس عينان صفية جامع أحمد. halkaa qabo markii calaamadda ay ku soo baxdo saa u ballaari marka si magacyada kugu soo baxaan. waad sii wadan kartaa marka magacyada intaa doontaad ka dhigan kartaa. close baad leedahay. yes, haddii macaamiil cusub uu ku yimaado waad furaysaa waxbaad ku dhex qoraysaa. marka kuwa iyaga wax lagu dhex qorayo form lagama sameynayo. waa form kaas wey iyo kan iyo kan lagama sameynayo. hadda waxaan sameynayaa wax loo yaqaano alaab si iibin sold item. marka intaana ku dhex qorayaa marka la soco. waxaan tegayaa table design. tablekii shanaad baan sameynayaa. date cidda wax laga iibinayaa waa customer wey. customer name. waxaa laga iibinayaana waa item. marka labadan look up garaa iloobin kan ku horeeya. marka adoo jooga look up de text box halkan fur, comma box dooro, halkan fur, ishan soo fur, waxaad ka doorani. okay, customers dooro si macaamiisha meesha uga soo baxaan hadhow. kana ku dhex jiid isagana halkii tag. waxaad doorani halkan fur, comma box ka dheh, halkan ku dhex jiid, halkan fur, waxaad dooran isaga product. ilaa alaabta aad ganacsatada ka soo iibsato hadhow toolan baad macaamiisha ka iibinaysaa. QTY oo aan soo gaabina maxay quantity number unit kii hore muxuu ahaa cost buu ahaa. kana waa price unit price. lacag ha noqoto, amount lacag ha noqdo. close garee markaa. yes ka dheh. magac maxaa loo bixinayay sold item. okay dheh ID-gana yes ka dheh. isagii markaa lama furayo intaad click siiso create more forms aye wada geli finish the wine form loo sameeyo. isagoo saa kugu dooran adoo ka bixin halkan tag. maxaa dooran report wada geli finish the isagana. okay, isagana maxaa loo sameeyay tablekii, formkii iyo reportkii. maxaa ku sii xiga marka kan waan sameynay sold itemkii waa kaan dhamaystirnay. hoos u soco marka xaashida labaatig. number 6 tableka lixaad baan sameynaynaa. waxaan u bixin doonaa account receivable waa deyn bixin. hadda halkan waxaa ka maqan liiskii hore hadaad eegto unit price-ka keliya ka maqan, intii kale way ku dheeyiin. waad look up garayn doontaa customer name-ka iyo itemka labadaba. product iyo customer baa dooran. haye create haye table design. waxaan ka bilownaa date baan ka bilaabinaa. waa marka aad doonayso deyn bixin meeshii aad gelin lahayd macaamiishu markay wax ka amaahdaan. customer name look up garee marka customer name-ka. look up text box ishan fur, comma box halkan fur, kadibna maxaa dooran customer. isla customer waxaan ahaynaynaa. haye customer maxaa ku xiga item. isagana look up garee halkii tag ishan fur, comma box dheh, halkan soo fur, halkan fur, maxaa doorani product. okay, haye product muxuu yeelanayaa tiruu yeelanayaa. number ka dhig
halkan qiimihii baa ka maqan maadaama deyn yahay marka amount in baad qoraysaa lacag ka dhig hortiisa okay waa bay taa kaliya close garee yes de ay maxay u bixi baa lagu yiri waxa u bixi lagu yiri account receivable deyn bixin weeyaan deynta adaa bixinaya hadda marka adi deyn lagu leeyahay halkan waxa laga dhigaa marka payable deymaha adi lagu leeyahay marka QuickBooks iyo Paytree iyo kuwaas ku shaqeynayso akoonada professionalka ah marka aad ku shaqeynayso accountantiga ama computerized accountiga marka aad ku shaqeynayso account payable baa loo yaqaan deynta adiga lagu leeyahay deynta adiga ka maqan waa account receivable marka deyn hadda inaga maqan way deyntaas waxaan u bixinaa account receivable okay baan leenahay ID gara yes baan leenahay okay account receivable okay bal okay baan leeyahay ID ga ma rabtaa yes waan rabaa halkan waxa ku soo biiray account receivable waxba furin click see isaga wax lagu madax qorayo form baa laga sameeyaa sidan oo kala create more form de ku dhufo wada gali finish de haye adigoon ka dheeraa reportkiisina ka sameey ka akhtarka oo kale waxaan tag reportkii wada gali finish de okay maxay haray warqadii aan ku laabto toddoba table baa aan kii u dambeeyay haray marka kharashaadka meeshii la gelin lahaa expenses marka create sidoo kale halkii ma tagaya table design party man maraya haye create haye table design date ka bilow marka date employee description amount كان زيادة account سوينا تكست هذا وبينتها كليه ما كانت تصمينا سخرشاتك انتها على العربة كليه وانتها سوي date employee description amount يا account اوكي كلوس بالله هاي وحنوب بحنا يا expenses خرشات استلايركي بيجي كرادي there is no primary key yes waan baahanahay waa kan marka isagana sidoo kale halkii tag form kiisina ka samee waa kan noo soo galay wada gali finish de haye adigoona ka dheeraanin report kiisina waxee waka maxay doon account receivable ka doon labadiiba waan qaldamay account receivable ko dooran maan dooran kan ee qalad ka dhacay marka saas oo kale kugu dhacdo kana kan wankan ka go'yaan ka delete gareena kana wankan ka delete gareena way laba jeer form kii sameeyay laba jeer report way kana inoo dooro marka waxa sameeynaya halkan haduuna ka xidhnay shaygu halkan ma delete garoobay marka halkan ka wada xidh wixii furan ka wada xidh okay right click de delete dooro marka kan kale ha delete gareeyni kaawon ka delete gareey delete isagana okay ka adoonaysa inaad u sameyso waa expenses ka dooro marka hore create waa kan wada gali finish de waa in loo sameeyo imika isaga uu dooro yahay ku noqo reportkiina sameeyo report waysaar shaqadii waa dhamaystirtay marka imika shaqadii aad ku bilowdo ayaa hadda lagaaga baahan yahay alaab baan soo iibsanaynaa hadda marka kaasaan furaynaa date kiba soo galeena ganacsadeen alaabta ka iibsanay alaabtii aan soo iibsanay tiradeedii marka qiimaha wuxuu ahaa $21 total kiba inoo xaray marka totalka seen soo saarnaa halka banaan baad istaagaysaa right click baad leedahay right click design view baad dooranaysaa markaad dhex gasho meeshan totalkan aad masaxaysaa waxaad ku qoraysaa qaacidadan equal qaws fur q t iyo y aan xir qawski lagu dhuftay de qawski fur waxa ka hooseeya q t y da unit cost qaabka uu kugu qorayo labadan qoraal baa la isku dhufanayaa macnaha quantity waa kan aan ku qornay unit costna waan qoraynaa unit qawskina xid waa qaacidadaas weey inta markaad u sheegto isaga totalka hadhow soo baxay close de yes marka hadda furo waxaad arkaysaa totalka inuu iska soo baxay haddaan alaab kale soo geliyo
totalkii sidaan buu soconayaa haye waa kan alaab baan soo iibsaday caamir baan ka soo iibsaday sharaab buu ahaa sharaabka waxaan soo iibsaday $129 midkii wuxuu igu taagnaa $2 haasaas soo baxaya marka uma baahna sample wadaysa marka next waxaan hadda u sameeyay waa alaab soo iibsashada way purchaserka alaab sii iibinta alaabaan sii iibiyay labadii alaabadood soo iibsay sharaabka ahaa ayaan hadda sii iibinayaa waa ka date-kii baan soo geliyay maxaad yaad ka iibisay horta miicaad maxamed baan ka iibiyay maxaad ka iibisay sharaab baan ka iibiyay sharaabka aad ka iibisay tiradiisu muxuu ahaa 12 ilaa customer soo wax yar buu iibsadaa laakiin ganacsadaha alaab badan baad ka soo iibsan doontaa marka qiimuhu wuxuu taagnaa $5 isagana sidoo kale waxa uu rabaa inaad amountkiisa soo saarto totalkiisa halka banaan isagana istaag right click leh design view leh amountkigan labaad masax ka maahaya ka midigta xiga masax haye waan masaxay equal ka bilow qowsaska aad ku shaqeynayso waa kuwa b4 ben midig ka xiga way midig b4 ben wad garanaysaa sax kaasaad furaysaa qty baad leedahay oo quantity-ga sare ah qowskii baad xidhaysaa lagu dhuftay baad leedahay maxaa ka hooseeya unit cost laakiin unit price inta aan qorin ka hor unit price horta qowskii fur shiftna lama qabanaysid iska ilaali shiftida waxaad leedahay unit price adoo xilka ku qoran baad ka qoraysaa hadaa Soomaali qiimaha ku qortana qiimaha badan qowska xidh marka wax shift lama qabanaysid hadaa shift la qabato ka goobadu noqonaya dhexda ka qalooca waa inuu saa u toosnaado marka inta marka aad sameeyso close leh yes da marka kaanu sameeyay keebo ha kaasu ha hadaa daan furo hadarkaysa inuu amountkiisa ka soo baxay marka sida uu soconaya isagu wuxuu eeganayaa un kaliya labadaas shaqo kale ma eeganayo 12 3 intaan buu eeganay intaan hadii la soo galiyo hadii kale date-kii soo gali xagan tag haye Ahmed Jaamac Sonkor wakaas marka next sambu soconay okay waxa la rabaa marka inaan ogaano alaabtii marka aan soo iibsanay dhamaanteed labada alaabood bay noo yaala isaguna waxa uu rabaa in total loo soo saaro marka isaga 10 kale aan ku arki doonaa marka alaabaha uu hadda gali labadaas oo baahan kana isagana sidoo kale dhowr alaabood bad gelinaysaa date-kii baa soo galinay yaa wax ka amaahday nin la yiraahdo gabadh la yiraahdo Warsaynaan waxay ka amaahatay bariis bay ka amaahatay bariiskii muxuu ahaa 2 kiish buu ahaa labada kiish $50 ay isku haayeen kan waa la qorayaa total soo saar malakaniya wal qoraysaa isaga hadii la hayno okay saasad wadaysa next soo gali date-kii cidii wax ka amaahatay wixii ay ka amaahatay tirada ay ka amaahatay lacagteedii inta isku ahayd okay next saasad wadi doontaa kan ugu dambeeyay expenses-ka isaga maxaad gelin doontaa kharashaadki ka dhaxad furaysaa mid walba ka dhaxad furaysaa kharashaad maxaa kharashaad kamid ah date-kii soo gali qofkan wax ka qaaday Maxamed Farax baa la yiraahdaa sababta uu lacagtan kaga qaaday maxay ahayd macnaheedu waxa weeye lacagta kirada akiro lacagta kirada imsa ahayd $150 $150 ma gacantaad uga dhiibtay mise saad baa ugu dirtay marka kolba sida aad ku siisay ayaad sheegaysaa waxyaabaha aad gelinaysa maxaa kamid ah marka laydhkii biyihii kiradii shaqaalihii shidaalkii qoladii nadaafada waxa soo dhan dayactir guri dayactir gaari okay lacagtii ardayda okay wax walba oo laga bixiyo company-ga oo lacag oo baxda meesha lagu qoro way date-kii soo gali haddana waxay noo yimid daahir nin la yiraahdo okay daahir sababtu ugu yimid lacag kaaga rabo waa maxay waa biyo way lacagtii biyaha biyo u bixi lacagtii biyo $50 bay ahayd haye cash baan ugu dhiibnay gacanta cash on hand way gacantaan ugu dhiibnay hadhow toole markaad dhaafto report-kana shaqada uu qabanayaa ah qofkii sida aad ku siisay inuu sheego oo kira ah oo biyo ah sidaas oo kale okay marka inta isku day qof walba qaacidadana raac marka xagad ka bilaabaysaa table-ka koowaad ka bilaabaysaa table u raac table u raac halka ugu hooseysana waxa lagu sheegay saddexdan table baa mid walba fur kuna qor magacyada aad uga tala gashay fandarkiisa waa furaysaa magaca ganacsatada aad ku qori product waad furaysaa magaca alaabaha aad ku qori customers waad furaysaa magacyada macaamiisha aad ku qori afartan table mid walba dooro kana samee hal form iyo hal report purchaser ka dooratay hal form baan ka sameeynay hal report baan ka sameeynay sold item kan dooranay
hal form baan ka sameynay hal report baan ka sameynay okay formkii reportkan ku sheegay waa ka soo item kan dooranay hal form baan ka sameynay hal table baan ka sameynay waxaan dooranay parachaiserka hal form baan ka sameynay hal table baan ka sameynay hal report baan ka sameynay hal form baan ka sameynay hal report baan ka sameynay sidoo kale account receivable ka dooranaysa waxaad ka sameynaysaa hal form iyo hal report sidoo kale expenses ka dooran hal form iyo hal report reportka macnaha waa kii dhaqaaqa ku eegay hadhow toole shaqada qabato ku tusi lahaa inta isku day. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi